Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada muuqaal kale oo kooban oo aynu maanta isku barbardhigi doonno awoodaha military ee labada dal ee Iran iyo Mareykanka. Sideen la wada soconayba dhawaanahanba waxa uu khilaaf xoogan ka dhaxeeyay labadan dal, kaasi oo la xiriira kadib markii Mareykanku ay kharajiyeen Qaasim al-Suleymaani oo ahaa mid ka mid ah hogaamiyayaasha ugu awoodda badan dalkaasi Iran dhanka militariga. Haddaba muuqaalkeenan kooban waxaynu eegi doonaa ama isku barbardhigi doonaa qaab dhismeedka military ee labada dal. Aynu ku bilowno caasimadaha labada dal waxay kala yihiin caasimadda Mareykanka Washington, halka caasimadda Iran ay tahay Tehran. Mujtamaca dadka ku nool Mareykanka waxaa lagu qiyaasaa 327 milyan, halka dalka Iran lagu qiyaaso 83 milyan. Isugeyn ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa dhan 2,146,000, halka dalka Iran ay militarigiisu dhan yahay 890. Active personnel ama ciidamada active-ka ee markaasi howlgali kara dalka Mareykanka waxaa lagu qiyaasay inay yihiin 1,286,000, halka dalka Iran ay leeyihiin 550,000 oo askari. Taangiyada ama kaarayaasha ay labada dal kala haystaan ayaa dalka Mareykanka tiradiisu ay dhan tahay 7,321 taangi amaba kaare, halka dalka Iran ay haystaan 2,531 kaare. Gaadiidka ay ciidamadu ku dagaalamaan tiradoodu dalka Mareykanku haystaa waa 40,760, halka dalka Iran ay haysato 3,521. Gaadiidka gaashaaman ee aan miinadu karin waxay Mareykanku haystaan 12,424, halka Iran ay ka haysato 1,722. Gaadiidka khafiifka ee dagaalka ee loo yaqaano light utility vehicle Mareykanku waxay haystaan 27,236, halka dalka Iran ay ka haysato 7,922. Madaafiicda ay Mareykanku haystaan guud ahaan waa 1,322, halka Iran ay ka haysato 621. Madaafiicda goobta loo yaqaano Tour Artillery Mareykanku waxay haystaan 921, halka Iran ay ka haysato 2,756. Gantaalayaasha nooca loo yaqaano Rocket Projectors Mareykanku waxay haystaan 1,197, halka Iran ay ka haysato 356. Iminkana haddii aan isbarbardhigno dhanka cirka, Mareykanku waxay haystaan isugeyn 13,564 diyaaradood, halka Iran ay ka haysato 541. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku waa 2,592, halka Iran ay haysato 187. Diyaaradaha waxweerare ee Mareykanku waa 2,993, halka Iran ay ka haysato 206. Diyaaradaha tababarka ee lagu siiyo militariga Mareykanku waxay haystaan 2,944, halka Iran ay ka haysato 201. Isugeyn helicopteriska ay Mareykanku haystaan waa 5,844, halka Iran ay ka haysato 126. Diyaaradaha waxweerare ee Mareykanku ee nooca helicoptertaahi waa 1,123, halka Iran ay ka haysato 12. Electronic warfare-ka nooca diyaaradaha casriga ee loo yaqaano Mareykanku waxay haystaan 43, Iranna waxay haysataa 5 diyaaradood. Transport aircraft diyaaradaha loo yaqaano ee xamuulka ee Mareykanka ciidamadooda ay haystaan waa 1,245, halka Iran ay ka haysato 89. Haddii imkan aynu eegno dhanka badda, isugeyn gaadiidka badda ee Mareykanku ay haystaan tiradoodu waa 437, halka Iran ay haysato 406. Aircraft carrier maraakiibta xamaasha diyaaradaha Mareykanku waxay leeyihiin 10, Iranna ma laha wax maraakiibta noocaas ah oo diyaaradaha qaada. Nooca loo yaqaano maraakiibta destroyers ee wax burburiya 85 ayuu Mareykanku haystaa, halka Iran ay haysato 1 xabo. Maraakiibta nooca loo yaqaano frigates Mareykanku waxay haystaan 22, halka Iranna ay haysato 8. Nooca maraakiibta dagaalka ee loo yaqaano corvette Mareykanku waxay haystaan 15, halka Iran ay haysato 3. Guushiisyada badda hoosteeda quusa Mareykanku waxay leeyihiin 71, halka Iranna ay leedahay 40. Maraakiibta shidaalka ciidanka siisa Mareykanku waxay leeyihiin 17, halka Iran ay ka leedahay 88. Maraakiibta nooca loo yaqaano mine warfare Mareykanku waxay leeyihiin 11, halka Iran ay haysato 3 markab. Nuclear-ka Mareykanku waxay haystaan 4,018 dhuumood, halka Iranna aanay wax nuclear xilligan haysanin. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkani. Xogtani waxay ahayd mid aan ka soo xiganay ilaha sida weyn wax uga qoraa militariyada caalamka.
runna waa ay noqon kartaa tirooyinkanna wax waa iska bedeli karaan iyadoo ay adag tahay in la helo siraha militari ee dalalka qaarkood. haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeennan kooban aan isku barbardhigaynay awoodaha militari ee labada dal ee Iiraan iyo Maraykanka. waxaan bartan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyo kale oo xiiso badan oo ku saabsan arrimaha caalamka iyo weliba kuwa dalkeenna hooyo ku saabsanba. aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.